waxaa farxad iyo sharaf weyn inoo ah maanta tallaabadii labaad safar 3 tallaabo ah tallaabadii labaad inaan qaadnay ee aan halkan ku sagootiyeyno markabkii sahankii hore sahanka ahay horaan halkan ugu sagootinay sahankii wixii uu soo sheegay kamera dhalanteediina waa kana Jakri Bay markabka la yiraahdo noo taagan halkaa oo u socda shaqadaas inuu qabto haddii alla yiraa lugta saddexaad waxaan u xafladayn doonnaa maalinta haddana ilaahay idankiis aan jawaabta uu soo saaro iyo waxa uu soo saaro hadalkeeda aan halkan isaga mar kale isugu imaan doonno halkan ama halkii kale 2013 ayay ahayday markii aan bilownay sheekada dalka betrool sahanka betroolka hala bilaabo hala xoojiyo dhibaato badan culaysyo badan caqabado badan oo naloo dhigay oo nalaga niyad jibinayay in aan sahankaa la sii wado ayaana soo maray corruption ay ka shaqeeyaan wixii ay dhici rabaan qandaraasyo aan sax ahayn ayay bixiyeen dhulkii ay bixiyeen kuwa iska ilaaliya la yidhaahdo soomaalideenna ka mid ahoo diiday ama aad iyo aad uga hor yimiday in maxaanku idhahda sahankaa la sameeyo iyo ajnebi intaba ayadoo markaa naloo tusayo maslaxadoo nala leeyahay wixiinaan idiin ilaalinayna waxaa maanta sahminaynaa haddiiba ilaahay uu qadaro oo aan helno shidaalka aan maanta la qodayo haddii ilaahay uu qadaro oo aan helno milyan sano ka badan oo meeshaas ku jiray shidaalkaas waa joognay annaguna marka milyan kala sana muu noogu sii jiraa annaguna baahi iyo macluun maan korkiisa ugu dhimannaa meeqa qof oo Soomaali ah ayaa baahi u dhimatay baahi laga maarmi karay oon u dhimatay haraad gaajo u dhimatay cunto loo heli karay amni darro u dhimatay oo amni loo heli karay intaasoo dhan tabaryari dawladnimo ma shaqayn karto mana socon karto dawladna ummadi ma noqon karto haddii aanay ku filnayn ama awood dhaqaalo oo ay dawladnimada ku ilaaliso ku xoojiso haddii aanay helin Soomaalidu horey uga maahmaahday biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa ka abaal dhici mayno caalamka waqtiyada aad iyo aad u adag noo soo gurmaday waqtiyada maxaan kala duruufaha adag aan ku jirnay noo yimiday waqtiyada amni darrada ugu adag aan qabnayna garab istaagay ee cadowga nala dhiciyey ilaa ay haddana garab taagan waan uga mahad celinaynaa laakiin xaqiiqada dhabta oo aan la inkiri karin waxay tahay ma jiro dal marka arrimaha muxuu ahay batroolka laga hadlay Turkiya arrimaha amniga naga saacidaa kuwa kale dalal kalena waa naga saacidaan arrimaha maxaan ku raadayay kaalmada bini aadamka ay naga saacidaa dalal kale waa naga saacidaan laakiin cidina batrool sahankiis nooma samayn noomana qodayso waa Turkiya waxaa intaasi sameeyey haddana u taagan ee samaynayo oo aan maanta halkaa isugu nimid madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan markii ugu horreysay halkaa yimid ee haddana halkan laga dhawaajiyey waxay ahayday waqti adduunyada oo Soomaaliya ka sii jeesanaysa imaatankiisii ay ku soo jeediyey maantana waa mar kale iyo waayahan dambe adduunyada oo shaki qabta in Soomaaliya la maalgeliyo oo $100 milyan oo dollar lagu maalgeliyo oo technology kale oo $100 milyan oo dollar joogaahi ay riski u qaataan ayadoo la leeyahay amni ma aha lama hubo insurance-ga ma ogola inta ma la yeeli karo ayadoo la leeyahay u qaatay in ay yimaadaan oo waxaasoo dhan ay u qaataan ma aha $100 milyan ee sahminta iyo qodista betroolka ku baxday maalgashiga Turkiga kuma eka waxaa maalgashiga qayb weyn ka ah riskiga ay qaateen ayaa la sidiisa maalgashiga qayb ka ah maraakiibtan hadda naag taagan markabka weyn Jakri Bay iyo
maraakiibta la socotaahi waxa waaye boqolaal milyan maahana waa billions waaye lacagtooda marka la isku daro intaasoo dhan safar 2 bilood qaatay oo ay u soo socdeen Soomaaliya si ay u yimaadaan oo waddooyinkii la mari jiray aan la mari karin ay ka soo leexdeen iyo maanta oo ay halkaa nala joogaan wasiirka waa bogaadinayaa waana u mahad celinayaa Soomaaliya markii saddexaad uu yimaado waayo 2 mar oo ka mid ah wuxuu u yimiday arrimahan shidaalka ayuu u yimiday waxaan leenahay marka dadka Soomaaliyeedow dadka waxaa ka mid ah maxaa la dhihi jiray waa carruurta habeenkii ay cabsataa waayeelkuna maalintii u cabsadaa soo maahayn dabeecadda waxaa ka mid ah dadaa colaadda dhiiran oo nabadda cabsanaya marka nabadaa loo sii socdaa la yidhaa waa baqayaa colaaddii in lagu noqdo uu ka shaqaynayaa xumaantii uu ka shaqaynayaa maxaan ku idhahdaa dhibkii la soo maray oon kulli waaye arag u ahayn uu ka shaqaynayaa wuxuu ka cabsanayaa nabadduu ka baqayaa waa haynaa qofka nabadda ka baqaya colaadda rabaahi inuu madaafiic iyo xabada soo rido bas maaha hadalka carabka afka madaafiic iyo gantaalo waa ka dhib badan yahay waxaad ku hadasho oo aad ku hadaaqdo madaafiic la soo tuuray ma marka qaarkood ayay ka dhib badan yihiin waad maqlaysaan dadka qaarkii ee Soomaalida ah ee aan kaliya aan ku ugu cudurdaari karo ama aan dhihi karo garashadaa ka gaabatay waxa ay ku hadlayaan